بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo maalin isniin ah oo ay tahay bisha afraad lixdeedii waxaan bulshada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer Puntland halka ugu soo jeedin doonaa fariin aan rajaynayno inay joogto noqoto bil walba maalinta isniinta u horeysa bishaas runtii barnaamijkan waxaan rajaynaynaa inuu noqdo barnaamij joogto ah oo ku soo kordha geedi socodka dawlad dhiska Puntland oo aan rajaynayno in ay maalin ka sii dambayso isu soo dhawaadaan maamulka dawladda iyo shacabka mas'uulka uu dawladdu u tahay si ay ula wadaagaan fariimaha ku aadan isbedelada dhacaya iyo waxqabadka ama dhaliilaha markaa jira si ay uga helaan war sugan oo xaqiiqo ku salaysan oo ka soo baxay madaxda dawladda iyo madaxtooyada sidaan ognahay isbedel weyn ayaa wuxuu ku jiraa guud ahaan bulshada adduunka oo dhinaca horumarka warbaahinta iyo sida ay qof walba uu gaar u rabo in uu macluumaadka isaga oo si toos u helo oo laga guurayo hababkii hore ee bulshooyinku u noolaan jireen iyadoo taa laga amba qaadayo dawladda Puntland waxay astaysay bil walba maalinta isniinta ugu horeysa in ay dadweynaha la hadasho si ay ugu soo bandhigto aaraada iyo afkaarta markaas dawladda ay u baahan tahay inay dadka u gudbiso iyo macluumaadka saxda ah ay rabto bulshadeeda inay la wadaagto iyadoo oo ay ula gol leedahay dhismaha dawladnimo iyo geedi socodka dhismaha bulsho oo aan rabno inay ku saleysnaadaan xaqiiqo dhab ah oo u adeegaysa horumarka mustaqbalka dadkan ay tiigsanayaan intaan u gudagelin fariinta hadalkayga waxaan rabaa inaan marka ugu horeysa halka uga tacsiyeeyo geeridii ku timid Allah u naxariistay ambassador Maxamed Cumar Jaamac Dhigic oo runtii ahaa nin muddo dheer u soo shaqeeyay dalka Soomaaliya xilal badan ka soo qabtay wasiir ahaa muddo dheer danjiraha Soomaaliya u fadhiya Brussels ahaan jiray wasaaradda kala duwan ka soo shaqeeyay sidoo kale tana burburkii kadib aasaaskii bulshada reer Puntland qayb weyn ku lahaa oo ahaa madaxdii iyo aqoon-yahankii yimid gobolada Puntland oo dhismaheeda qayb weyn ka qaatay maxamed jaamac ilaahay ha u naxariisto maxamed cumar jaamac ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaan allaha ka siiyo dhammaan eheladii qaraabadii asxaabtii muddada dheer taqaanay sidoo kale inkastoon horey ugu tacsiyeynay waxaan fursaddan maanta iyadan uga faa'iidaysanaynaa ra'iisul wasaarihii hore ee Nuurcadde ee weli tacsiyadiisa taallo waxaan isagana ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryanaa inuu qabriga u waasiciyo dambi dhaafna ilaahay uu siiyo iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed ee muddadii u dambeysay geeriyooday oo uu ka mid yahay guddoomiyihii gobolka Nugaal oo runtii gacan ka xaq daran oo argagixiso ah ay ku dishay magaalada Garowe iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee dhammaan magaaladan dambe khaasatan Yurub iyo Mareykanka ugu dhimaaya xanuunkan caabuqa ee ku soo siyaaday adduunka oo runtii dhibaato weyn ku haya caalamka Soomaaliduna ay qayb ka tahay fariintan waxaan rabaa inaan u guda galo marka ugu horeysa xaaladda hadda taagan ee dalku ku sugan yahay waxa ugu muhiimsan oo adduunkana ay la qabtaa waxyaabaha ku soo kordhay caabuqa COVID-19 oo runtii ah musiibadii ugu weyneyd ee boqolkii sano u dambeysay dhacday oo adduunka argagaxa ku riday runtii musiibadaas oo runtii ka xoog badnaatay taariikh badan oo adduunku soo maray oo ku koobnaan jirtay dalal iyo qaarado kooban waxa ay maraysaa dalalka United Nations ka aqoonsan iyo kuwaan aqoonsaneenba wax ku dhow 208 entity ama dawladood ama deegaano ayuu gaaray oo kulli laga sheegay xaalado caabuqaas ka mid ah oo Soomaaliya ka mid tahay runtii waxa la yaab leh sida uu qaaradaha uga gudbayo sida uu dadku ay si degdega ay ugu gudbinayaan waxa ka dhashay waxaan hore adduunka u dhicin oo ah in dhammaan dawladaha qaybtood oo dawlado aad iyo aad ay u adag tahay in daqiiqad ay shaqooyinka socda ay joogsadaan in dalalkii oo dhan laga xiray isku socodkii diyaaradihii gelidii bixidii dhammaan la xiray hay-adihii iyo meelihii laga ganacsan jiray istoogyadii waaweynaaday adduunka la xiray dhimasho
argagax abuurtay ayaa adduunka ka socota runtii arrintaas waa arrin khatar weyn leh oo dadka Soomaaliyeedna aad moodid wili inaysan si dhab ah aysan u fahmin sida dhabta ah waxa weeye daawada waxa ka muhiimsan ka hortagga caabuqaana wuxuu uga daran yahay xataa daawo ilaa ay hadda ma leh lagu dabiibo waxa kaliya oo la hayo waxa weeye in laga hortago oo dadku isgaarin fariimahaas adduunka ka soo dhacaya waxaa nasiib darro ah sida xogaha lagu sheegayo dadka Soomaaliyeed ee wadamada ku nool dibadda khaasatan Ingiriiska iyo Sweden iyo waxa aad looga sheegayaa fariimihii iyo talooyinkii la siinay inay qaadan waayeen oo numberka dhimashadoodu uu aad u kordhay sababo ah inaysan ilaalin kala maqnaanshaha iyo isku imaanshaha isku booqashada inay ilaaliyaan cudurkan wuxuu ku gudbaa taabashada wuxuu ku gudbaa neefta oo hindhisada iyo qufaca isku dhow dadka masaafo dhow isku jira iyo dadka faraha badan oo isu imaanaya dowladda Puntland iyada oo khatartaas caalamka ay ka aragtay ka duulaysa ayay waxay ka yeelatay shirar hordhaca waxay mararkii ugu horeysay adduunka laga soo sheegayba ay geysay eraboorada magaalooyinka waaweyn ee Garowe iyo Gaalkacyo iyo Boosaaso qalabka lagu ogaado xaraaradda qofka iyo heerka ay marayso waxay isla markii guddi baa loo xirsaaray ka howlgala inay diyaariyaan sidii loola tacaali lahaa xaaladaas ka hortageeda iyo hadday wax dhacaan sidii looga jawaabi lahaa waxaa la asteeyay goobo looga sooco dadka intiisa kale dadka xanuunkaas ku dhaco oo halis u ah in ay qaadaan runtii waxay dowladda Puntland si dhow ula socotay isbedelada ka dhacaya caalamka gaar ahaan wadamada noo dhow sida Djibouti, Ethiopia iyo Kenya iyo Soomaaliya inteeda kale taa fariimaha aad u soo kordhaya waxa weeye inuu kordhayo numberka uu ku dhacayo wadamadaas aan soo sheegnay dariska ah oo si dhab ah u cadeeya dhaqdhaqaaqyada dadka iyo inta uu ku dhacay oo koror ku sii socdo waxa kale oo iyadana runtii ah arrin dhiila ah in dhakhaatiirta Soomaaliyeed gaar ahaan dhakhaatiirta magaalada Muqdisho ku dhaqan qayb ka ah ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed inay soo saaraan qayladaan ay tuhun ka qabaan in cudurkaasi uu si aan la filayn ama la garanayn uu ugu jiro dhulka Soomaalida oo awoodda dawladnimo iyo baaritaanka oo aad u liita darteed baqdin laga qabo inuu dadka Soomaaliyeed uu ku dhex mushaaxayo waxaan Puntland ay goor hore qaadatay iyadoo dadkeeda iyo u naxaysa in dadka ay ku soo jeediso in la yareeyo soo baxyada kulamada meelaha lagu qaxweeyo iskuuladii baa la fasaxay dadka inay soo imaan baa la sheegay habeenkii oo dhan si loo yareeyo fiidsiga maalintii duruufta dhaqaale darteed ayaa waxa loo fasaxay in dadku danahooda shaqo ay qabsan karaan laakiin waqtiga ugu badan ee dadka Soomaaliyeed ay isu yimaadaan oo meel wada fariistaan oo wada shaaheeyaan oo ay wada sheekaystaan waa xilliyada fiidadkii iyo habeenkii waxaa aad lagula taliyay ama laga mamnuucay inay dadku magaalooyinka maraan waxaa sidoo kale la joojiyay qaybta ugu khatarsan ee Soomaaliya maxaa yeelay cudurkani ma aha cudur meel ka dhasho waa cudur la soo waarido ama meel ka soo hijrooda ama meel ka yimaada meelaha ugu badan waan ka baqayn inuu ka yimaado waxaa ka mid ah dalalka dariska ah oo ay ka mid yihiin Ethiopia iyo Kenya waxyaabaha lagu kala qaadi karo ugu badan oo soo qaadi karo oo soo raaci karo waxa ka mid ah qaadka dowladda Puntland waxay joojisay qaadkii waxaa nasiib darro ah in dadkii laga kari la'yahay war naftiina iyo noloshiina u naxa oo maalin walba dad Soomaaliyeed ay ka soo waaridayaan qaadkii si ay ummadooda ay u heligaan waad u jeedaan indhihiina macallin ah in maalintii magaalooyinka qaybtood wax boqolaal qof ay dhimanayaan 500 700 800 oo qof ayaa dhimanaysa waxaana la sii sheegay inuu kor u sii socdo marka dhayalsiga in laga tago awal baan dad tabar yar ahayn dad yar ahayn dadkeenu haddii intii magaalooyinka joogay uu ku dhaco dabargoro waa dhacay marka waxaan aad ugu boorinaynaa shacabka Soomaaliyeed inaysan dhayalsan dadka mas'uuliyiinta ana sifaadkaas iyaga ay ugu horeeyaan oo laga arko waxaa aad loo dhayalsanayaa oo runtii fariinta ugu muhiimsan halka aan u dirayaa waa ciidamada Puntland oo dhaliil badan ay ka jirto ama inay la dagaalamin qaadka ama iyaga naftirkooda in lagu soo sheegayo dowladda Puntland guddiga waxa ay u xilsaartay inay dabagal samayso dadkii ay ku cadaato mas'uuliyiina inay sahleen
ama iyaguba isticmaalayaan ama ay fududaynayaan ama aysan wax ka qabanin dowladdu tallaabo ayay ka qaadi doontaa ee aanan runtii degdeg ah maadaama dadkii mas-uuliyadda wada iyagu ay dayacayaan mas-uuliyaddooda runtii arrintaas waxay u baahan tahay in si dhaba loola socdo oo la ego baaq ayaan u dirnay caalamka inna laga caawiyo khatartaas hadday noo timaado ilaa iyo hadda mucaawino la tilmaami karo oo aan helnay ma jirto marbaa 15 kartoon oo kooban waxaa naga soo gaaray mucaawino China ay Soomaaliya ugu deeqday oo timid xamar ilaa iyo hadda wax kale oo aan soo gaaray ma leh inkastoo aan filayno in dalal badan ay soo caawin doonaan ama ay imaan doonto alaab rajadaas weli kama aan quusan qayladaan ayaa meelo badan u dirnay ilaa iyo hadda qalabka lagu baaro ma yaala Soomaaliya oo dhan awoodda ilaahay naguma keenay hadduu dilaaco aan u xakameyn karno way kooban tahay xarumaha karatiinkeena qalabka yaala waa ay kooban yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan oo ah haddii uu qofku ay neefta qabato ama dad badan ay qabtaan sida meelaha badan ka dhacaya sidaan kula tacaali karna aad bay u yartahay waxaa keliya aan faraynaa annagoo u marinaynaa bulshada waxgaradkeeda culimmadeeda isimadeeda dhalinyaradeeda haweenkeeda daawadeedu waa inaad gurigaaga joogtid oo ilaalisid nadaafadaada oo gacmahaaga meertid oo dadka aadan u dhowaanin intaas ayaan kula dardaarmaynaa dadka inay aad u ilaaliyaan intii karaankooda ah oo aysan dhayalsan arrintaas aad ayaan u tilmaamaynaa xanuunkan wuxuu la soo baxay dhibaato dhaqaale wuxuu la soo baxay dhibaato bulsho wuxuu la soo baxay dhibaatooyin aad u fara badan dhibaatada ugu weyn marka laga tago xanuunka iyo saameynta caafimaad uu yeelan karo waxa uu yeelan doonaa saameyn dhaqaale waxaa isdhimi doona dhammaan dakhliga ama dawladda soo geli jiray ama qofka soo geli jiray maxaa yeelay shaqooyinkii baa hoos u dhacay dakhligii dadku hadduu yaraaday dakhligii dawladduna waa uu yaraaday marka dakhligaas yaraaday wuxuu saameyn ku yeelan doonaa amniga wuxuu saameyn ku yeelan doonaa wadidda howlaha dawladda oo ugu muhiimsan tahay arrimaha haddii caafimaadka si wax ugu qaban lahayd waxaan rajaynaynaa annaga oo diyaarin ku wadna habkii aan uga bixi lahayn isdhinkaas annagoo la wadaagayna dawladaha saaxiibka naha iyo dawladaha deeqda bixiya waxaan rajaynaynaa in aan ka helno garab istaag muddadaas adag maadaama dalkeenu uusan ahayn dal holay kayd u lahaa dalalkii kaydka dhaqaale lahaa waxay u fureen khasnadihii kaydkooda dadkii shaqo la'aanta ku dhacday dadkii ay jooga yiraahdeen waxay siiyeen mushaharooyin shirkadihii shaqada laga joojiyay waxay ugu bedeleen bedel dhaqaale iyaga oo kabaya dhaqaalahooda laakiin Soomaaliya runtii duruufteeda waa isma dhaanto dhib badan ayaa haysta marka caalamka iyadana waxaan ka rajaynaynaa inay arrintaas wax muuqda ay ka qaban doonto runtii maalin walba waxaa baxa si maalinla ah guddigu wuxuu u soo jeediyaa warbixinta ku saabsan waxyaabihii qabsoomay iyo waxyaabaha la rabo in dadka loo sheego dawladda Puntland runtii guddiga hawshaas ka shaqeynaya aad baan ugu amaanayaa inay joogteeyeen shaqooyinkii ay noqotay maamulka Soomaaliya ee ugu horeeyay ee si dhaba u fuliya bandooga si dhaba u fuliya in xarumaha lagu kaydiyo ama dadka lagu karantiilo oo aad u badan magaalo kasta ay ka furan tahay wadamada maamulada kale waxa laga yaabaa hal meel ka furan tahay laakiin halka Puntland waxay ka furan tahay Gaalkacyo waxay ka furan tahay waxay ka furan tahay Garowe waxay ka furan tahay Qardho waxay ka furan tahay Boosaaso Buurtille meelo kale oo badanna waan ku jirnaa qalabyada waxaa la geeyay dadka lagu kontroolayo magaalooyinka Buuhoodle xuduudda dhinaca Laascaanood waxaa la geeyay Baran waxaa la geeyay meel kasta oo dad ka soo geli karo waxaa lala tacaalayaa galdogob intaas oo dhan dawladda Puntland wasaaraddeeda caafimaadka guddiga waxay xaqiijiyeen in dhammaan wixii karaankooda ay geeyeen waxyaabaha kaleetana ay qorshayaashooda u wadaan waxaan ka codsanaynaa bulshada reer Puntland inay gacan ku siiyaan guddiga ka hortagga caabuqa iyo guddiga nabadgelyada oo kasii farcama oo fulinaya awaamiirta la rabo in lagu xakameeyo waxaan sidoo kaleeto ugu baaqayaa culimada iyo mashaayikhda inaysan ka dhaga adeegin fariimaha uga imaanaya caafimaadka oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala annagoo tala saaranayna ayaa haddana waxaa la rabaa in aan talada ku darno inaan taxadar badan muujino diinteennuna way ogoshahay waana axaadiis dhab oo ka sugnaatay maaragtay
diinta ku sugnaatay in xilliyada ay dhacaan xanuunada noocan oo kaleeta ah la karantiilo dadka oo isu socodka la yareeyo. marka waxaan rajaynaynaa in inta aanan hal qof markuu ku dhex dhaco inta la sahalsanayo hal qof hadduu masaajid galo oo sidaa la isugu dhow yahay waxaa cabsidu ay tahay inay intaasba uu qaadsiiyo intaasna in kale ay qaadsiiso. marka wiqaayada ayaa ka horeysa cilaajka. marka waxaan rajaynaynaa in ka hortagga aan badino. waxaan sidoo kale rajaynaynaa macallimiinta dugsiyada qur-aanka kuwa iskuullada xilligii loogu talagalay in lagu ilaaliyo inay aada u fuliyaan oo aan fariimahaas siduu tahay loo fuliyo. xafiisyada dowladda awaamirtii la siiyey ay fuliyaan. dadka ay runtii hawshaas ay si fiican uga qayb qaataan. intaas haddii aan uga gudbo arrimaha ku saabsan caabuqa waxaan rabaa inaan halka u gudbo arrinta labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waxa weeye waxaan runtii aada u bogaadinayaa hawsha dib u heshiisiineed ee ka socota galmudug. waa runtii hawl lagu farxo in madaxweynihii hore galmudug xaaf uu maanta caasimadda galmudug ee dhuusamareeb u tegey uu caddeeyey in uu diyaar u yahay inuu dhismaha galmudug uu qayb ka ahaado. waxaan uga mahad celinayaa madaxweyne qoorqoor sabirka iyo dadaalka iyo wanaagga uu u sameeyey siduu dib heshiisiin u abuuri lahaa. waxaana muuqata markii galmudug ay isku keliyeysatay dadkeedu oo runtii dowladda dhexe ay waqti siisay inay arrimahoodii xallisteen. waana arrin lagu farxo oo aan ku baraarujinayno kuna bogaadin doono degaan walba dadkiisu inay arrimahooda ay xallistaan oo wixii madmadow oo dhexdooda ku jira ay ka wada fariistaan oo wanaag ay uga gudbaan. waxaan sidoo kale halka bogaadinayaa dadaalka iyo wadahadal ka socda magaalada Nairobi ee u dhexeeya madaxweyne axmed madoobe xidig seeraar iyo sheekh daahir oo runtii iyagana khilaaf ka abuurmay xilligii doorashooyinka jubbaland ay ka dhacaysay sabab ka dhalatay ay khilaafkaas uu usoo jiitamayay. waxaan uga mahad celinayaa inay garteen in ay ka wada hadlaan arrimahoos oo ay xalliyaan. waxaana runtii ka warqabaa in goordhow uu gabagaba yahay xal waaran ay ka gaari doonaan. isbedeladaas ku socda Soomaaliya oo ka dhex socda maamulada oo dadka Soomaaliyeed ay garteen inay wada hadlaan waa fure iyo rajo cusub oo dadka Soomaaliyeed u soo hoyatay. middaa mid la mid ah waa midii Puntland ka dhacday shirkii wada tashiga ee dadka reer Puntland oo dhan isugu yimaadeen arrimahooda ka doodeen ka tashadeen iyagoo aan iskala saarin qaybana iska dhigin. wadadaas cusub waxaan rajaynayaa inay noqoto wado Soomaaliya muddo ay sugaysay oo mashaakilka jira oo dhan xal siyaasadeed lagu xalliyo. dowladda federaalkana waxaan ugu baaqayaa in ay wadadaas dadku doortay oo ah inay wada hadlaan inay isdhegaystaan inay isu tanaasulaan inay dhiirigelin u samayso oo gacan ka geysato oo iyaduna ay la timaado aragtidaa la mid ah oo ay dhammaan maamulada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka iyadana gogoshaas garoowa aan ugu fidinay inay iyaduna ay galaan oo lagu wada heshiiyo oo dalka meel uu wada jeesto maadaama adduunkii khatar uu ku jiro oo aan la saadaalin karin inta uu socon doono caabuqa. waxaan dhiirigelinaynaa in arrimaha khilaafka siyaasadeed ee dhammaan geyga Soomaaliyeed ka jira wada hadal iyo wanaag lagu dhameeyo. shirkii halka ka dhacay waxaa ka soo baxay aragti ah in gogol loo dhigo dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. dowladda Puntland weli sidii bay ugu taagan tahay gogol xaarka arrintaas. waxaan hore u sheegnay inaan magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kaleeto maamuladaas caasimadaha u aan muuqan doono. arrintaas waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed aan u sheego inay weli sideedii ay tahay. dowladda madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aan u gudbiyey inaan diyaar u ahay waqtiga aan diyaar inaan ahay. dabcan weli jawaabtu dhinacooda ayay ka xaniban tahay. waana filayaa duruufahan hadda caabuqa iyo waxyaabo la mida inay saameyn ay ku leeyihiin laakiin dhinaca iyagu diyaar weeye waana u sheegnay waqtiga aan diyaarka nahay welina sidii baan diyaar u nahay. dad badan baa su-aashaas qabay oo marar badan na weydiinayay. marka waxaan u caddaynaynaa inay Puntland
waxba iska bedelin diyaar u tahay inay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ay booqato xilliga diyaar garowga xagga uu ka hirgalo sababaha farsamo ee suuragalka ana ay xal looga helo waxyaabaha u waaweyn oo runtii maanta aan rabno inaan dadka halka uga sheegno waxa weeye isbedelada guud ee Puntland ka socda oo runtii ku salaysnaa waxay leeyihiin saldhig dowladnimo dowladda Puntland waxay leedahay dastuur waxay leedahay vision dadkeedu ay dejiyeen ama aragti ay tiigsanayaan annaguna waxaan ka qayb ka nahay waxaan ku shaqaynaynaa shuruucda dastuurka dalka uu nafarayo iyo aragtida dadka reer Puntland ay leeyihiin 22 sano kadibna mar labaad ay ku celiyeen shirkii ka dhacay 15 ilaa 17 bishii March ee ka dhacay magaalada Garowe shirkaas wuxuu aad u qeexay una cadeeyay waxyaabaha dowladda Puntland ay dadkeedu ay ka sugayaan dowladda Puntland oo anigu mas'uul ahay waxaan ballan qaadnay soo jeedimahaas dadku ay soo jeediyeen inaan fulin doono annagoo ku salaynayna awoodda iyo heerka marka aan kari karno dowladda Puntland oo anigu madaxda ka ahay muddadii sanadka iyo dhowrka bilood ay jirtay waxa ay ku soo gashay in ay astayso yoolal ay rabto inay xaqiijiso oo ugu muhiimsan yihiin inay dib u habeyn ku samayso ciidamada Puntland runtii ciidamada Puntland isbedel ayaa muddo ku socday meel fiican maraya tayeynta qaybihii ugu muhiimsanayd oo ahaa tababarka hubinta askariga iyo saraakiisha iyo hubka oo ku saabsan hab biometric ah iyo xuquuqahooda ay si toos ah wasaaradda maaliyadda ay u siiso iyada oo account u furaysa runtii aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa wasaaradda maaliyadda iyo guddiga amniga ee hawshaas gacanta ku haya iyo saraakiisha iyo hogaamiyaasha ciidanka ee hawshaas gacanta ku haya waxaa la dhamaystiray ciidanka madaxtooyada oo si dhab ah oo toos ah muddo dhowr bilood ugu qaadanayay mushaharkooda si toos ah waxaa hadda dufcaddii ugu horeysay oo sidaas oo kale taa marka laga tago ciidamada madaxtooyada qaybahooda kala duwan iyo kuwa taabacsanba magaalada Qardho hadda loogu madaxweyne ku-xigeenka ugu soo xiray tababar ciidankii ururadii ugu horeeyay oo arrimahaas iyagana lagu fulinayo waxaan rajaynaynaa isbedelkii iyo wixii aan ku dhawaaqnay in dadku ay dareemi doonaan haddana waxaa socda sidii loo dhamaystiri lahaa akawnadii loogu fur lahaa bishaarooyinkooda toos loo siin lahaa kuwa kale oo dhibanna wadada la marin lahaa inta badan waa la tira koobay tababaradii waa socon doona mushaharooyinkii bay toos u qaadan doonaan waxaan rajaynaynaa inay meesha ka bixi doonaan waxyaabaha dadka reer Puntland u yaqaanaan caaglayaasha oo inta badan ciidamada culays ku haya oo mushaharooyinkoodii ay dhacdo in aysan gaarin ama tira badan oo mushahar ahaa oo bixi jirtay iyo tayo aan meesha jirin waxaan rajaynaynaa hadda kadib mas'uuliyaddu inay qof noqoto qof walbana gaar loogu xisaabtami doono hawshaas muddadii lagu jiray runtii guulo waaweyn baa laga gaaray iyo diilo badanna wayna sii siinaysaa waxaan rajaynaynaa inay sii socoto muddo aan fogeynna ciidamadu arrintooda soo xiran doonaan soo dhammaan doonaan waxaa sidoo kaleeto iyada barbar socota ciidanka daraawiishta ciidamada booliiska oo runtii iyagana isbedel iyo tababar muddo lagu soo waday waxaa markii ugu horeysay aan qaadnay tallaabo ah in taliyayaasha qaybaha oo sida caadada ahaan jirtay qayb walba nin deegaankeeda laga xuli jiray iyadoo duruufo jiray oo markaa la xeerinayay in ay markaan dowladdan bilowday in taliyayaasha qaybaha iyo askartu aysan noqon wax deegaan gaara leh meesha hadba shaqo looga baahdo in loo diro waxaa la kala bedelay deegaan ahaan gobolada Mudug iyo Nugaal iyo Karkaar waxaan rajaynaynaa deegaanada kaleetana wadadaas wadamada lamida inay mari doonaan waxaan rajaynaynaa isbedeladaas inay aan qiimeyn doono wanaag iyo xumaan waxay soo kordhiyaan si aan ugu sii dhisno mustaqbalka qorshayaasheena aan wadno waan dareemi karnaa caqabaadka ka imaan karna waa si u diyaar garoobayna waxaan insha Allah rajaynaynaa dadaalada ka socda amni ee magaalada Boosaaso iyo Gaalkacyo inay miro dhali doonaan waxaan magaalada Boosaaso wadnaa hab maadaama magaalo caasimadii dhaqaalaha noqotay magaalo aad u ballaaran noqotay magaalo dad ajaaniba oo badan ay joogaan ay noqotay in magaalada loo kala jajabiyo degmooyin ama xaafado waaweyn oo 4 ah oo runtii maayarka degmada Boosaaso hoos tagi doona laakiin noqon doono shaqo ahaan
midba midda kale ka madax bannaan oo si toos u report garayn doonta oo dhinacooda amniga iyo dhinacooda horumarka iyo dhinacooda serviceka dadkaba la isugu qaybin doono. qorshayaashii baa dhammaaday, ciidamadii ka howlgeli lahaabaa tababar ku aadan dhinacaas la siinayaa. dadaaladaas waxay marayaan meel fiican. ciidamada kala duwan ee magaalada Boosaaso jooga iyo madaxda waxay wadaan dadaal aad u badan oo aan rajaynayno inay horumar laga gaaro. waxaan aad uga digaynaa dadka caadaystay falalka aan fiicnayn iyo gacansiinta ururada argagixisada ah. dowladda Puntland ciddii ay ku caddaato in ay xiriir la leedahay ururadaas ama macaamil la leedahay waxay ula dhaqmaysaa sida ururadaas argagixisada oo kaleeto. waxaan ugu baaqaynaa dadka in isku dhacyada ka yimaada reeraha khaasatan dhulalka in laga waantoobo. waxaan aad u rajaynaynaa in isbeddelka maxkamadaha oo muddo soo socday iyaduna ay dhaqan geli doonto. aan aad ula socon doono cadaaladda iyo sida ay hore ugu socoto. magaalada Gaalkacyo waxaan rajaynaynaa dhowaan in isbeddel dhinaca amniga ah laga samayn doono. taliyaha cusub ee qaybta iyo marka uu tago iyo ciidamo dheeri ah oo halkaas loo diri doono waxaan rajaynaynaa inay xasilin doonaan magaalada amnigeeda, kala dambeynteedana soo celin doonaan. waxaan ka codsanaynaa bulshada reer Gaalkacyood inay gacan ku siiyaan taliyaha cusub iyo ciidamada sugi doona amnigooda oo ay la shaqeeyaan. sidoo kaleeto magaalada Garowe waxaa ka socda isbeddel amni oo xoog leh. waxaa socda baaritaano xoog leh. waxaa lagu daba jiraa shabakadii ka dambeysay dilkii marxuumka guddoomiyihii gobolka. runtii baaritaankaas ma raba inaan ka hor dhaco. hay-adaha ku shaqo leh ayaa ka hadli doona, laakiin waxaan u sheegayaa bulshada inuu meel fiican marayo, waxyaabo badan oo lagu farxana gacanta lagu hayo. waxaan bulshada reer Puntland ka codsanaynaa inay laamaha amniga gacan siiyaan, in ay dowladooda ku kalsoonaadaan, in wararka warxumo tashiilka ah ee waayadan dambe ku batay baraha bulshada iyo dadka cadowga ah Puntland aan loo qaban horumarka Puntland. waxaan rajaynaynaa inay hubsadaan wararka saxda ah ee Puntland meelaha muhiimka ah, idaacadaha iyo telefishinada sharciga haysta ee la yaqaan ee lagula xisaabtami karo waxa ay sheegaan inay ka qaataan macluumaadka. waxaa jira website-yo iyo pages badan oo magacyo iskala baxbaxay oo magaca Puntland wax iska daba raaciyay oo aan sax ahayn. waxaa la rabaa inay kala gartaan dadku, kaliya ay ka qaataan hay-adaha warbaahinta ee la yaqaan, hadhow haddii ay khalad galaan lala xisaabtami karo oo iska ilaalinaya khaladka, inay wararka saxda ah ka qaataan. waxaan aad ugu rajo weynahay wararku inay ku noqdaan warar sugan ay faafin doonaan, inay ka qayb qaataan waxaan amniga. waxaan runtii hay-adaha warbaahinta ee Puntland ee rasmiga u shaqeeya uga mahadcelinaynaa dowrka shariifka ah ay kala qayb qaateen Puntland dhismaheeda dowladda Puntland, iyagoo ka madax bannaan hay-adaha dowladda, qayb ka qaatay arrimaha xasaasiga ee dalka, khaasatan cudurkan COVID-19 inay dadaal badan ka bixiyeen oo ay wacyigelin badan ka bixiyeen oo si joogta ay u tabiyaan dhacdooyinka iyo warbixinaha ka soo baxaya guddiga arrintaas saabsan. waxaan uga mahadcelinaynaa dadka reer Puntland arrintaas sida ay xoogga u saareen. waxaan rajaynaynaa isbedeladaas ku socda dhinaca ciidanka, dhinaca maaraynta maaliyadda, intaasoo dhan waxaan aad ugu rajo weynahay in ay siday tahay u fulaan. waxaan sidoo kaleeto runtii dadka ku boorin doonaa iyo hay-adaha dowladda inuu isdhin ku yimid dakhligii dowladda sababaha xanuunkan ula yimid. waxaa la rabaa in dulqaad loo muujiyo. marxalado badan waxaa dhici karta in hay-adaha dowladda iyo dadka dowladda serviceyadeeda waxyaaba inay iska dhimaan. arrintaas waxay u baahan tahay in lala fahmo dowladda oo dulqaad loo muujiyo. marxaladaas waa wax guud oo dunida ka jira. waxaan aad ula soconnaa cabashooyinka la xiriira canshuuro la kordhiyey, haweenka ganacsada qudaarta iyo arrimaha la xiriira, iyo fariimahooda ku aadan in ay dad ka qaadaan waxaan sharci ahayn. runtii fariinteenu wayna soo gaartay. hay-adda u qaabilsan madaxtooyadda arrimaha warbaahinta si joogta ayay macluumaadka dalka ka jirta ay noo soo gudbisaa. cabashadiina wayna soo gaartay. haddii ay jirto khaladna waxbaa laga qaban,
haddii ay jirto kordhin annagu ma filayno canshuur la kordhiyin maan ogin laakiin canshuur aan la qaadi jirin haddii la qaado waxaan rajaynaynaa in aad nala garataan waxaan uga mahad celinayaa dadkii media la hadlay oo runtii si mas-uuliyad ula hadlay oo gabdho runtii xilkas ah oo caddeeyey inay dowladdooda garab taagan yihiin canshuurta inay bixiyaan ay diyaar u yihiin laakiin ay wax tabanayaan waxaan rajaynayaa hay-adaha khuseeya arrintaas inay la fariistaan waxa jira ay dhegaystaan ay qanciyaan annaguna dabagal ayaan ku samayn doonaa xadgudub uma ogolin dadkeenna wixii jira in laga wada hadlaa la rabaa waan rajaynayaa inay madaxtooyadu ay samayn doonto meelo fariimaha lagu soo gudbiyo waxaan mar dhow inii soo bandhigi doonaa sida aad fariimaha kusoo gaarsiin doontaan madaxtooyada si cabashooyinkiina waxna aan uga qabanno waxna aan uga jawaabno iyo su-aalaha ay khusayso bishiiba mar waxaan rajaynaynaa in dadka dareenkooda aan usoo dhowaano waxqabadka waxa aan qaban karno un baan qabanaynaa awooddeena inay tahay laakiin waxaan rabnaa inaan ii caddayno inaan adeegayaal idiin nahay oo aan rabno inaan shaqadiina sida ugu habboon oo ugu wanaagsan aan u fulino dabcan shirarka arrimaha federaalka ku saabsan waxba hadda ka hor dhici mayno wuxuu ku xirnaan doonaa kulamada ay yeelan doonaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah oo aan rajaynaya inay dhacdo xilli ku habboon oo haddii ay suuragal noqoto annagoo tixgelinayna duruufaha iyo xaaladaha dalka maraya guud ahaan dadka soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay nabadda ilaaliyaan colaadaha soo ifbaxay la yareeyo kuwa ka dhacaya aagga mudug saaxay agagaarkeeda waxaan ugu baaqaynaa in colaada la joojiyo dhex maraysa dadka walaalaha ah waxaan sidoo kaleeto ugu baaqaynaa colaadaha ka dhacaya magaalada kismaayo agagaarkeeda oo dad walaalaha iyagana ay ku dagaalamayaan in colaada joojiyaan dhulka soomaaliya lama kala leh dadka soomaaliyeed waa dad qura waa dad wada degan dhul la kala riixdo dhulkaan ma jiraan waxaan rajaynayaa wanaagga in laga shaqeeyo nabadda laga shaqeeyo loo wada jeesto cadowga dhabka ah ee al-shabaab sidii loogu hortegi lahaa waxaa xaqiiqa ah oo soo ifbaxaysa dagaalada qaybtooda iyo colaadaha qabaa'ilka inay al-shabaab qeyb ka yihiin hurintooda iyo daacish oo ay dadka ay intay soo dhex galaan isu ekaysiiyaan ku abuura xamaasad iyo xiisad qabiil oo aan meesha oolin iyo xiniftan beelaha ay dhex dhigaan waxaa la rabaa in la iska looga waantoobo sidoo kaleto dagaalada ka dhacaya magaalada walaweyn ama daafeed waana aad baan uga xunnahay iyadana dadka ku dagaalamaya inay joojiyaan colaadda ay shabaab hurinayaan oo nooca cusub ah in laga digtoonaado waxaan rajaynayaa colaad oo dhan inaan ka gudubno wada hadal iyo isfaham u gudubno waxaan sidoo kaleeto dowladda soomaaliyeed ee federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ahba ugu baaqaya in gogoshii aan u fidinna ay naga aqbalaan khilaafaadka jira laga gudbo qolo walba mashaakilkeeda ay xalisato waxa dadka ka wada dhexeeya la isugu yimaado hore socod iyo dowlad midaysan laga wada shaqeeyo waxaan aada ugu rajo weynahay fariinta dadweynuhu inay joogto noqon doonto intii aan ugu talagalnay maanta waa intaas waxaan rajaynaynaa bil walbana inay naga heli doonaan fariimo kuwaan la mida aad baa umahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullah